sheekh imka urduniya oo khaliijka culimada ka sheekha ka mid ingiriisku ka yimi ragii rabshada badnaayo meelaha ingiriiska joogay buu hadaba waa iskaga yimi meelahan buu yimi urdun 2 sano meelaha soo masaajid isku xidhay hatta waxaad aragtaba uu qaybsanay kitaabka aad istiraado bakan sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa kitaabku akhrinaya ma aha bashar caadi dadka kane yani dadka ka gadisan maaha hawshaad haysaabo hayaan shaqada qabataabay qabtaan saddex dumaray qabaan aabayeen caruur bay u shaqeeyaan waxaad wadaabay qabtaan laakiin xagee wax iska weydaarsan yihiin waxaan leenahay waxa wax iska weydaarsan labadan shay baa u baahan inaynu fahamno inaynu han yeelano caali ilhimma inaad noqoto qofka caali ilhimma waxa lagu yaqaan inuu aziimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto ina dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaabka tuurta maya ma inuu noqdo qof aziimo leh fa idha azamta fatawakkal ala allah billahi markaad go'aansataan ilaahi subhanahu wa ta'ala tala saarta qofka caali ilhimmiga waxa lagu yaqaan waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibn al-jawzi laha hadii buu yiri nabinimada la oran lahaa farsama lagu helayaa iyo barasho inaad wax nabinimo ka yar raadisaa waa ku doqonnimo buu leeyahay yani meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa ku doqonnimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyul himma waa qof raba shaqada uu qabanayo inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudh alkitaba biquwa ba ilaahay yaxya kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo tilmaamaya ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نكدداله إذا أنت سو آخرتها إلهي سبحانه وتعالى وهو مهد عليه وحلنا نقفك عالي الهمة قاهي وقف وقتك بخيل كواه ويلبيه طبعا من هدي بيت قرآن لغو قيبة يمس ساعدات بكالما محاد لبيه طبعا كان كاغا دغاي وحوي waxay yiraahdaan culimada nafs insaanku bay yiraahdaan at-ta'wid waxa la yiraahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waayay bay yiraahdaan meel kale isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yiraahdaa isku mashquulinay dadana xagaasina ka wada muuqan salada meesha taala waxa way waxay yiraahdaan aqliga bini'aadam waa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa al-aql al-wa'i قيبنا وحي كشغان العقل الباطن او الا شعوري العقل الواعي وحي كتلماما وعقلك سو جيده وعقلك تحليليه وحن حواسته اي aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warama fakara wax sheega aqlina waxa la yiraahdaa aqli al-batin aqli al-batinku waxay yiraahdaan waa xajmi aad u weyn isagu عقل الواعي قنا وحير بيدهدان لكن وحا يربا هوغاميه بيدها عقل الواعي marka wuxuu dhigmaa baydhadan wana khudaha doonta wada doon weyn buu wada laakiin isagu wana khudaya عقل الباطن ka waxa la galiyaa malumaan waxaad se u baahantahay inaad ka dhaadhiciso shaygu markuu عقل الباطن عقل الواعي ka sare وكم فكره تليه ورميه ورك شيغا لكن انت سو جيدنا وسو جيدا markaad hurdanaysna uu seexda oo maqayni aqal al-batin ku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba uu soo jeeda wixii loo dhibana waa ilaaliya aqal al-batin ka waxa wax loogu dhiibaa ku celcelin iyo ka dhaadhicin at-tasdiiq wat-takraar ba ugu badan bay yiraahdaan in la fahamsiyo laga dhaadhiciyo laguna celceliyo isagu bay yiraahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa tabiica iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu badala yani dhaqan buu badala mesela waxa lagu sheegay xadiis nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato saxiix ma xadiiskaas aynu hayna maalinta koowaad xadiiska lagu sheegay sheekhu kitaabka dhigay adag fadhiday waad fahamtay xadiiskii hadhow markaad maqaaxida tagtaan shaad dalbataan mad bidix iska yar qadoonka soo sheekhu yiri ka daayo midigta ku cad aad ka dhigto midigta ku qaad waan ilaaway waa tir sheekh midigta iska cabti
saddex afar shanta casho hore marna bidixdaad ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinaysa maad xasuusanaysaa adagaysaa masoonaysa war shaydaan baa nala cabay midigtaad ku qaadanaysa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa la soo dhigayaa midigtu baad ku qaadan weligaa bidixda ku qaban maysid waad ka barata waayo waxay dhahdaan caqli albaaطinkay degtay uma baahnid inaad fikirto tiraahdo ma bidixdan ku qaadaa ma midigtan ku fikrad lagaama rabo inaad tiraahdo bidixda iyo midigta teebaa go'aan ku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay dhahdaan maalan askari haddaad doonaysa bay dhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu traingareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto isiraha socod bilow bidixdun buu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidixda kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli albaaطinku bay dhahaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli albaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlu albaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daalli intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mida xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun intaad dulka xaadisay caqli lwaacigaa haya oo safxadaad ka fakeraysaa oo aayaddii ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waabay xisaabinaysaa intaa weli caqli lwaacigii baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakertee sidaa faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa